عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan bartaad naga daawanaysaan waa Baaruud Official. maanta waxaa noo martay Cabbaas Ibrahim Abubakar oo loo garan og yahay Abwaan Xaashi. soo dhow Abwaan. waan ku dhawahay channelkaaga saaxiib asxaabtaadana waxaan leeyahay oo idin salaamaya. waa tahay aad baa mahadsantahay saaxiib. bal maxaad maanta bahda ama Baaruud family maxaad ugu talagashay? maxaad noo sidaa maanta? waxaan idiin sidaa maanta maansadaasoo ku timi qiso ninaan saaxiib nahay iyo inaan isjeclaanay dhex martay. qisadaasuna waxay ahayd dumarku badanaa maanta dee dunida joogno waxay qadariyaan lacagta. maalin maalmaha kamid inanka iyo inantu xiriir badan bay soo wada lahaayeen. waxaan ku odhan jiray waa niyo jacayl ma jiray maxaad iska waalaysa anuna xagga jecilka xiriirka iyo jacaylka maba aad ba umaan aaminsanayn. maalin maalmaha kamid iyadoo ay xiriirkoodii sii wada wataan ayaan waxaan arkay inantii oo wantin xagga hore lagu sito. waan yaabo inankii baan ima masaako waa niyo saaxiib inantii caynka ahay aad xiriirka wada lahayd aad lahayd noloshayda inta ka dhiman yadaa la qaybsanaya iyaduna ku lahayd waan isjecel lahay sawtan kaa tagtay maanta iyadoo gaadhi saarno nin kale sita arkay. deetana adigu maansada halkii bay ku dhalatay. markaa inankii iyo inantii ayaan magacyadoodii kusoo qaadanaya maansadana aan ku shabahaya. maansaduna waxay ku bilaabmaysaa Salebaan wuxuu yidhi inankii Salebaan ma ka soo qaaday inantina Sibeed. Salebaan wuxuu yidhi jacayl baa isaaqoo sanbabaday gooyo si baan ahay beryahan oo cuntadii ka soomo sahwi caashiq bay helay sanadkii 9aad baan sariirta jiifaa Sabeedaan jeclaa baan sugayaa sanado badan haddaan seeftu ila tegin ama saarka caashiq. dumarkuna sinaan male oo way kala sareeyaan midaa samada geysaa kugu saydhinayso aan rabin sidaa tahay oo dantay kugu silugta anna waxaan sugayaa taan darteed saqaysnaa. Sabeed baa waxay tiri horta waa si wacan oo aanba kuma silugin oo jacaylku waa isaaqoo saableyda feedhaha iyo sanbabadu ay gooyo waa anigaan sirqaysano sabaan waan ku sugayo kuma seegin adigee iisaa forkaago maxaad sidaad ku haysaa maxaad xoolo sidataa walanimaan 9 mid lagu daray aan sabada soo tubin inaan salaamo daayo maba eego siduu yahay. Salebaan wuxuu yidhi walaashay Sabaadii sabaan baynu joognaa dadku kala sodcaaleen geel laysma siiyo waa la islaamaa quyar la isisabaya oo waa la isooraa haddaa taas lugtina safar baynu gelinaa sool iyo sanaag iyo seeric iyo boorima iyo sabadaa dalkeena 7 days ku gelinaa. Sabaad baa waxay tiri horta waa si wacan oo anba kuma silugin oo jacaylku waa isaaq horta waa Sabaad baa waxay tiri adigoon Salebaan aan dantaada seegin anigana wax silciyo aan badin saxariir waad heeli mid kula sida oo kula sodcaasho safar kula gelayso aan ku seegin abidkeed anna waxaan sugayaa midka saadka iyo lacag walaal ani isiiyee reerkayga suuray geer sabada soto salaam baan ku leeyahay. markaa inankii ay jeclayd yani waxay tiraahdo waan ku jecelahay balse haddana lacag un bay meesha kusoo xidhay. markaa waxaan leenahay dee dumarka dee bal lacagtan iyo wax inagarida xagga jacaylka qiimeeya. waa tahay Abwaan aad baad mahadsan tahay. marka hablaha waxaad kula talin lahayd inay xagga jacaylka qiimeeyaan ay lacagta ka cararaan soo ma laakiin in kastoo dee lacagtii iyo jacaylkii labadaba loo baahan yahay haddana mar kastaba waxaad leedahay qiimeeya xaggii loofka xagga jacaylku bay muhiimadu tahay. waa tahay Abwaan ma jiraa maaso aad adiga ku khusaysa ama naf ahaantaada ka hadlayso waa tiris midaan naftayda kaga hadlaya way jirtaa oo dee security oo dee xagga jacaylka iyo xagga arrimaha adduunyada ka jirta balse halkan adiga asxaabteedaba waxaan idinkula soo gudbinayaa maaso la dhahdo adduunyay wareer badan. maasadaasuna waxay ku timi maalin waxaad arkaysaa adduunyadii oo qof wanaajinaysa oo mid kale xumaynaysa ama adiga ku wanaajinaysa maalinna ku xumaynaysa. markaa sidaa daraaddeed adduunyada iyo aniga ayaa halkan ku wada hadlaynaa. markaa maasadaas ay idiin soo gudbinaya. maasadana waxay ku bilaabmaysaa adduunyay wareer badan maalintaadu wacnayd baan warsanay dhahaayo wacnaantaada sheegtaa adiguna wejiya badan waad ila wareegto waaban waalan gaadho subax waa wanaag iyo wacan waxaan idhaahdaba waad ila wareegtaa walbahaar bilowdaa ma waabay sumeen iyo waraabiyo wad baa tahay mise waabad wadataa wanaag iyo xumaantoo hadba laba wajiil adigu waaninaysa. adduunyad bay iminka jawaabaysa markaa warsamo walaalow horta waali kuma badin waabay suneed iyo waraabiyo wad maa noqon weligay intaan jiray adigaa wareerkii waalida isbadayee anigana warkay maqal anaa ku waramaye warankaa wax lagu dilo marbaad heshi moodaa wadka kaa ilaashaa walaalkaa rumaad yahay oo lagaaga waabtaa weerar ruuxa kula rabo marbuu kaaga weecdaa marna waa wadkaagu aduu weerar kugu yahay oo wuu ku wiiqaa aniguna warkaygiiyo waayahayga sheegtoo waa anigan wadoo idhi waran walaashi baan ahay oo maalin waan wareegaa wadka waan ka daranahay warwar iyo dhibaatiyo walaac miidhan baan ahay oo waa layga waashaa barna ruux wanaag badan oo la weheshadaanahay
waxaa laba wajiilaa igu wacan wuxuu yahay ruuxii waqtiyo badan wareegay dhibtoodaan u wanaagsanaadaa oo weelkaan u buuxsha kii aan werwarinaya dhibaatada ka weecday doonaya wixii wacan inuu hawl usii marin baan werwer iyo dhibaatoyo aan walbahaar ku beera. aada baad mahadsantahay abwaan. bal maasooyinka jacaylka sidaa isku tiinsay waxbaad nooga haysaa maadaamay maanta dhalinyaradu jeceshahay xagga jacaylka ma garanaysa, bal hal iyo laba dad hayso noo taabo. inkastoo aanaan xagga jacaylka iyo waxa aanaan isku fiicnayn, bal haddana inan aan beri aanu sira asxaab ahayn aada usmaanaan jeclayn ayaan idiin dul maraya. maasadana waxaa la dhahaa jamaad, inantana jamaad baa magaceeda loo odhan jiray. marka inantii waxaan kula hadlayaa maasa ahaan iyo hab suugaaneed. waxaan kuleeyahay bal haddaad dee aad jacaylka wax ka garanaysid inaad hadhow igaga baxdaan waxa ka baqaaniyo intaa asxaabaan saaxiibanahay baad arkaysaa jacayl ku dhacay oo jacayl iyo dhibaatooyin badan heleen. marka waxaan leeyahay dee intaan bal aanu jacaylkani waxaan aanu waali keenin qarashna ma haye dee maxay isla keenaysaa. inantii baan kala hadlaya waxaan ku idhi haddii aan jamaaday kula jiro jacayl dhaba kula joogo abidkay aana maanka kaa jirin jeexayga kaa dhigo armaad anii jiidhaa dhulka aadi jiidaa la jirkayga diidaa oo dila jihata aniguna jamaadey aan galaa jab gooniya oo aan murug la jiifaa jaarkaygu yaabaa talow yaa jab kaa baday yaa jiidhay wiilkaa maxaa jeexa kaa dhigay ay su-aal la joogaan gooraan jawaab gabad intii aan jamaadey anna aan jajabilaa adna waayo jirileyd aan joojiyo jaro jabka caashaq leeyahay balse waxaa jiree kale jeebkaaga oo mudhan ruux lama jeclaadee adigoon jab iyo hanjeex lacaga oo qura waa maxay jacaylkani ma waxbaa la jilayaa mise waa dhab waxa jira waxay jaahwareerkani waa anigan jiboodo ilan waa jirabine xaggee baynu joognaa cirka miyaynu jiifnaa dhulka miyaynu joognaa mise ruux jinaana. yacni aniga waa jin isku tilmaamaya anigoon jawaab helin inaan caashaqaa jiro oon jeelka caashaqa aan galo aan jago ku yeesho oo iga jilec jamaaday. intaasi maasno waa tahay abwaan aada baad mahadsan tahay. bal waxaad inoogu soo gabagabaysaa insha allah anagoo kaa codsanayna maasadii ka hadlaysay guusha iyo nasiibka. bal maasada nagu soo gabagabay insha allah. idin wadaya maasadaasuna waxay ku timi inta badan dadku waxay eegaan maasada horta guushii nasiibka wax horta waxa nasiibka la yidhahdaa ma jiro. wax kastoo aad u dadaashid oo aad waqti iyo dadaal gelisid ayuunbaad heshaa. badanaa soomaalida waxay tidhahdaa qofka ka heer gaadha ama nolosha wanaajiso waxay idhahdaan qofkaas nasiibbaa saaciday waqtigaa saaciday. ma jiro waxa la dhaha waqtigaa saaciday qof waliba intuu effort iyo dadaal sameeyo ayuunba guulaystaa. maasaduna waxay ku bilaabmaysaa guushiyo garaadkiiyo gobonimo kolay tahay gaar looma siin ruux geygaa ka simanoo gaalkiiyo islaamkuba garashiyo aqoodiyo guudka waa ka siman yahay laakiin waxaa guray ee mid geeyay guudka gundahana mid soo dhigay garaadkooda weeyo mid kastaa wixii gara ee uu gaaru leeyahay ama gocasho uu rabo la gudbo naftiisu midba gaar u qaataa. marka guluf colaadeed maalinta raggu iskalo midna wuu gurguurtaa geeriduu ka baqayaa gabashuu naf moodaa midna gaadhku joogaa geeriduu ka jecel yahay inuu gaabsadoo boqo oo wuxuu u go-ayaa gar wuxuu leeyahay adna geestaada eegoo maadaa ka gaabsaday maadaan wax garanayn mise way gedmaysaa oo duniyada gabaabsiya oo geeri baa dhow oo waaba gegi maran mise adaan garaabayn oo naftaada gaasiray oo yidhi kun baa tahay iyo mid waqtigu gabay runtu gaabsi malhoo saaxiib garaadow anaa kuu soo gudbinaya balgarabso inayo gar waxaad u leedahay aada gelisay maankiyo waxa guulle kuu qoray waa laba gudboonoo mid kastaa wixii gala ayaa laga gurtaayo waqti baa la geliyaa waxaa guul la gaadhaa ama hadaf la gooyaa marka aada waqtiyo go-an aada garindhaxaadkii hurdo kala go-daanee maalintii guclaysee aada orodka goysee haddii garashadaa tahay nasiibkaa wax kala gura oo midgeeyo guudka gundahana mid soo dhiga waa kuu garaad xumo iyo qof aan wax garanayn adigaana godobtaa naftaadii ka galayoo goobtaa isdhigaya cidna hawgunoone. waa tahay saaxib yaal waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka insha allah intaasaynu ku ekaan doonaa. haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir subscribe-ta shareta like-ta intaba laidiin sheegi maaye kulanti dambaan idin leeyahay insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.